maalmaha ka mid ah ayaa waxaa xafiiska nagu soo booqday customer kaasoo ka cabanaya guri dhisan oo dhismihiisu dhammaaday oo isagu uu leeyahay in aanu ku qanacsanayn qaabka uu dhisan yahay oo ruuxaantii uu doonayo in loogu sameeyo redesign ama renovation ama in dhismihiisan ama nashqadiisan wax laga bedelo si uu u noqdo guri qurux badan oo ma garanaysaa riyadiisa ah. kadib markii xafiiska nagu soo booqday annaguna waxaanu u raacnay dhismihii oo aanu soo booqanay si aanu uga helo xog nagu filan oo aanu ugu sameyn karo renovation ama redesign. kadib waxaanu soo qaadanay cabiradii iyo sawiradii dhismaha qaabka uu eeg yahay, halka wax laga bedeli karo iyo ma garanaysaa wixii lagu soo biirin karo, wixii laga saari karo dhammaanteed. kabacdi waxaanu ku soo noqonay xafiiskayaga markii aanu ku soo noqonay waxaanu isla discuss gareynay injineeradii xafiisku waa isla eegeen qaabka ugu wanaagsan ee wax looga bedeli karo nashqada iyadoo aan dhismihii hore la duminayn, mar kastaba la minimize gareynayo qiimaha ku bixi doona designka ama renovationka haddii la haydmo, isla markaana kaabis lagu sameynayo si uu u noqdo dhismo qurux badan isla markaana customer ku qanci karo. kadibna anagoo kaashanayna aqoontayada, anagoo kaashanayna experience-kayaga ayaa waxa aanu ka bedelnay oo aanu sameynay design cusub oo isla gurigii dhisnaa ah. kadib diirin karo waxyaalaha laga bedeli karo, meelaha ku habboon in laga saaro ama wax lagu soo daro. deetana tiimkii nashqadeynta ayaa waxa ay ka doodeen qaabka mar labaad wax looga bedeli karo dhismahan iyadoo oo lagu xisaabtamayo cost-ka, iyadoo lagu xisaabtamayo dhismaha hore ee dhisan inaan wax ma garanaysaa kharashka aan aad loo siyaadin. kabacdi waxaanu soo saaray designkan aad arkaysaan inagoo soo raacinay qiimaha ku baxaya gurigii hore ee markii hore qaabkan u ekaa, marka qaabkan laga dhigo waxa ku baxaya anagoo u soo raacinay customerkiina waa ku qancay 100%, isla markaana dhismihii sidaas ayaa lagu bilaabay oo imika uu ku socdaa. waxaan rajaynaynaa markuu dhamaadana insha Allah wadin la soo wadaagi doonaa. haddaba haddii adiga mushkilad noocaas oo kale ay ku haysato oo dhismo aad dhisatay aanad ku qanacsanayn sida uu eeg yahay, waxaanu kaa caawinaynaa inaanu nashqadaada ku bedelo isla markaana aanu kaaga dhigno mid aad ku faraxsan tahay. haddii isla markaana aan ku qanacsanayn qaabka uu eeg yahay, waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. annaga ayaa ku sameyn doona nashqad ka qurux badan ka imika ku dhisan iyadoo oo dhismahaaga aan la duminaysan laakiin wax uun lagu soo darayo haddii la idmo. cid kastoo baahan ha nagala soo xidhiidho lambarada shaashada ku qoran.